shanta Soomaali faafka hore ee magaalada Laascaanood ku soo dhaweynayna sareeyo guuto General Saleebaan Barre Geesood taliye ku-xigeenkii ciidamada Somaliland oo maanta iskaga yimi ciidamadii Somaliland. Saleebaan soo dhawow, maanta waxaad ku jirtaa 1982 halkii ay ku jireen ina kaahinayna biixi waxay ka baxeen baad ka soo baxday walibana maalinta dawladdii ugu quruxda badnayd ee Soomaaliyeed baa jirtay. xilligaas waxaa Soomaaliya ay ku jirtay in qoys kasta oo Soomaaliyeed noloshiisa, caafimaadkiisa iyo waxbarashadiisa ay damaanad qaaday dawladda Soomaaliyeed. waxa kaliya ay ka baxeen nimanka korneylada ee ina kaayana biixi iyadoo dawladda Soomaaliya oo aan Hargeysa maalinta la dumin oo Burco la dumin. waxa kaliya ay ka baxeen waxay ahayd maxaanu Soomaaliya madax uga noqon weyn. adigu maanta waxaad ka soo baxday dulmiga lagu hayo dadkaaga. waxaa la dumiyey magaaladaadii, waxaa la qaxiyey dadkaagii, waxaa la dilay carruurtaadii. waxaa maanta Laascaanood iyo hareerada ku bayhoofsan oo ku barakacsan hooyada, sodohda, gabdhahaagii, carruurtii iyo intii la midka ahayd. Saleebaan waxaad ku soo dhawaataa dalkaagii oo inan kula mid oo kuga haysto. waxaad ku soo dhawaataa difaacii dalkaaga. waxaad ku soo dhawaataa sidaynu Laascaanood u dhacsan lahayn. weynaa magaalada Laascaanood taliye-xigeenka ciidanka Somaliland Saleebaan Barre Geesood, sareeyo guuto Saleebaan Barre Geesood oo ka soo tegay SNM. Saleebaan Barre Geesood wuxuu hogaaminayaa tolkiis buu hogaaminayaa. taliye-xigeenkii ciidanka wuxuu hogaaminayaa tolkiis hogaaminayaa. marka Saleebaanna tolkiis hogaaminayaa, Nuux Taanina tolkiis hogaaminayaa. beesha caalamka waxaan u sheegaynaa in aanu nahay laba qabiil oo isdilaya oo qabiil ku soo duway oo baadoona ninka la yiraahdo Musabixi iyo Nuux Taani meesha la yiraahdo Hargeysa ee bidqaatayaasha ee magaranaysa taagtaagan ee damiirka uu sii waayay in ay dadka sida ka xanuunsadaan oo halyeeya oo naga maqnaa baanu ku soo dhaweynaa gobolka Sool. fadlan ku soo dhawow, tafadal. waa dadkaagii waa dalkaagii, garabkaaga la taagan yahay, adna garabkayagii baa tahay. kootaad ikhraar soo ahayd ararkii waa ragii horeeyay. maantana atoori wakaa eeganooyin saaxiibkeen mahad baan kelmadda u sii farayaao abtayaashaday kuma rabaan oo anaa huba reerkaas ay dhalay leen. abtayaashaday kuma rabaan oo anaa hube waan kuu baahannahay. wax naga maqan baa tahay adiga iyo ragga la joogaaba. wax naga maqan baa tahay adiga iyo ragga la joogaaba. sidaa darteed waxaan aad iyo aad mar labaad iyo mar saddexaad ba soo dhaweynayna. waxaan mar labaad iyo mar saddexaad ba soo dhaweynaynaa jananka inoo yimi banduura ciidanka
Somaliland SNM oo ka soo nagu soo biiray talkii ku soo biiray la walaaloobay gartay inaan dan ugu jirin la joogitaanka qoyska Muuse Biixi gacan ku dhiiglaha runtii soo galinkiisuna maanta kaliya ma ahayn in mudaaba uu nala shaqaynayay wuxuuna qorsheynayay qaabkii uga soo bixi lahaa hadda ayay u suurta gashay waana noo yimid nabadqab nagu soo gaaray waana ku faraxsannahay waa haliyay naga maqnaa insha Allah kuwa kale ee ku maqanna in ilaahay garansiyo waxa walaalka iyo generaalka walaalka ayaa ilaahay garansiyay inay gartaan ciidanka Somaliland markii hore ahaa hadeerna janaadeesan baan anagu naqaan jananaarka waxaanu ku soo dhaweynaynaa harti iyo systemkana SSC iyo dhulkan daarood si uu madax uga noqdo waxna uga taro jananaar soo dhawow ku soo dhawow dadkaagii iyo dalkaagii uu gartay in ilmaadeeradii ka maqan yihiin ilmaadeeradii la laynayo maatadiisii la laynayo gurigiisii la duminayo ayuu gartay aad baan kugu mahad celinaynaa mahad ilaahay gabdhaha iyo dhammaan dadweynaha soo dhaweeyay oo maanta oo dhan qorraxda taagnaa oo halka ay ugu dulqaatay aad baan uga mahad celinayaa ilaahay baa mahad leh waad ku mahadsantihiin ilaahay baa idinka jisaasiinaya mahad labaad waxaan u soo jeedinayaa oo ku xijinayaa dadweynahan reer SNC waa wada SNC weeye anigu waxba uma kala aqaano muxuu ahaa hartiga la kala fogeynayo waxaan ogahay harti iyo habar jecel inay isma yihiin marka la kala qaybinayo dadka ayaa la yidhaahdaa muxuu harti soo doonay harti iyo habar jecel abtisiyaha siman haddana Jibriil Abubakar baa fadhiya Samarroob baa fadhida waa waqtihiin isba xulufo dhan baa muxuu ahayd la dagaalamaysa in harti baa tihiin laakiin marka aynu joogno meeshan wax ka bilowday meeshan maanta taaganahay aad baynu u kala fog tahay iyo guusha aynu gaadhnay aad baynu u mahadsannahay waxyaalaha yaryar oo dhaliisha ah waynu saxan doonaa kolley anigu dhaliisha xaggan iyo xaggaba wareegahay hoos baynu si xal waraysan doonaa haddii alla yidhi waa saxaafad wixii intaa dhaafsiisan hoos baynu uga wada hadli doonaa haddii alla yidhi iyo wixii talaa iyo waxaas oo dhan ilaahayna waxaynu ka baryaynaa guul inuu guushayna siiyo hal qodobun baan ku darayaa nimanka halkan fadhiya oo muxuu ahaa inay magaalada ka qabsadaan 15 sano ay fadhiyaan meesha qaar baan inta xaasaskoodii arag oo iyaga xaasaskooda kala maqnaayeen waa qasti bay xigteen inay muxuu ahaa dadka iyo dalka yeeshaan marka inta ay leeyahay fadhiyaan rabaa iyo in ka badan waa dalkii inaga ah oo rabaa inaan muxuu ahaa waxaan ku dagaalano nimanku waa taas dhulka ninkaada u hala insha Allah waynu hoos baynu soo waraysan doonaa wixii inta ka badan iyo wixii tala dilahaydno wasalaam